Ma Vitamin Dii ayaa dada dib u dhigi karta. Daraasad cusub ayaa leh haa, laakiin shuruud ayaa jirta. Daraasad cusub ayaa soo jeedisay in qaadashada Vitamin Dii ay gacan ka geysan karto ilaalinta dhamaadka koromosoomada Telomeres, kuwaas oo u shaqeeya sida koofiyadaha ay kabaha xirtaan ay uga hortagaan in laanlaha kabaha uu kala furfuro. Telomeres-ku waxay difaacaan Dii aan ee-da markasta oo unuggu kala baxo, waxaana la og yahay in ay gaabiyaan habka gabowga. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji sabskraibsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto. Mahadsani. Cilmi baarayaashu waxay heleen in qaadashada maalin kasta ee 2 iyo halbeeg caalami ah oo lagu cabbiro fitamiinada ee Vitamin Dii ay ka caawisay ilaalinta telomeres. Telomeres-ku waxay ku yaaliin dhamaadka 4 koromosoom ee jirkeena. Markasta oo unuggu kala baxo way soo gaabaan. Markay aad u gaabaan, unuggu ma sii qaybsami karo oo ugu dambayn wuu dhintaa. Telomeres iyo cudurrada. Telomeres-ka gaaban waxaa lala xiriiriyey cudurro badan oo gabowga la socda sida kansarka, cudurrada wadnaha iyo lafo-jileera. Walbahaarka joogtada ah, sigaar cabidda iyo niyad-jabka ayaa dardargeliya soo gaabinta telomeres, halka caabuqyada jidhka ku dhaca ay iyana khatar ku yihiin. Vitamin Dii ka badan hope bonus. Vitamin Dii waxaa si fiican loogu yaqaanaa xoojinta lafaha maadaama uu ka caawiyo jidhka nuugista kalsiyamka. Carruurta, dhalinyarada iyo dadka maqaarka madow leh ama qorraxda ka yar helaa si gaar ah ayay ugu baahan yihiin. Laakiin Vitamin Dii wuxuu kaloo xoojiyaa habka difaaca jidhka. Caddaymo ayaa muujiyey in uu yareeyo caabuqa neef-mareenka, gaar ahaan dadka ku yaraaday. Cilmi baaris hore ayaa sidoo kale soo jeedisay in uu gacan ka geysan karo ka hortaga cudurrada difaaca jidhka ku dhaca sida rheumatoid arthritis, lupus iyo multiple sclerosis, inkastoo tijaabooyin dheeraad ah loo baahan yahay. Maadaama caabuqa uu dhaawaco telomeres, saamaynta Vitamin Dii ee ka hortaga caabuqa ayaa laga yaabaa inay sharaxdo doorkiisa difaaca. Daraasada cusub. Daraasadan laga sameeyey jaamacadda Augusta ee Maraykanka ayaa raacday 1.3 qof oo elis ahaan dadoodu ahayd 5 sano muddo 5 sano ah. Waxaa lagu cabbiray telomeres bilowga 2 sano kadib iyo 4 sano kadib. Kalabar waxay qaateen 2 iyo Vitamin Dii maalin kasta, halka kuwa kale la siiyey kaniiniyo been abuur ah, placebo. Natiijooyinka ayaa muujiyey in telomeres lagu ilaalin karo 4 base bayrs kooxdii Vitamin Dii marka loo barbardhigo kuwa kale. Daraasado hore ayaa muujiyey in telomeres dabiici ahaan ku soo gaabaan ilaa 4 base bayrs 10 sano gudahood. Taas macnaheedu waa in Vitamin Dii ay siin karto difaac dhab ah. Hog hore oo dhiirigelin leh. Cilmi baarisyo hore ayaa sidoo kale soo jeediyey faa'iidooyin la mid ah, halka cuntooyinka Mediterranean-ka oo hodan ku ah nafaqooyinka ka hortaga caabuqa lala xiriiriyey telomeres dhaadheer. Laakiin qodob ayaa jira. Qaar ka mid ah cilmi baarayaasha ayaa ka digaya in telomeres aad u dhaadheer ay kordhin karaan halista cudurro kale. Waxaa la rumaysan yahay in ay jirto heer dhexe oo caafimaad leh, balse weli lama fahmin. Waxaa kaloo muran ka jira qiyaasta saxda ah. Daraasadan waxay adeegsatay 2 iyo maalin kasta, taas oo ka badan talada guud ee hadda jirta ee ah 6 iyo dadka ka yar 7 sano iyo 8 iyo dadka ka weyn 7 sano. Cilmi baaris kale ayaa xitaa soo jeedisay in 4 iyo ay ka hortagi karto hargabka. Khabiiradu waxay yidhaahdeen qiyaasta ugu fiican waxay ku xirnaan doontaa arrimo shakhsiyadeed sida heerarka Vitamin Dii ee jirka, cuntada guud iyo sida uu ula falgalo nafaqooyinka kale. Gunaanad. Inkastoo natiijooyinkani hiiso leeyihiin, weli waa hore in la isku halleeyo qaadashada qiyaas badan oo Vitamin Dii ah si dada loo dib u dhigo. Caddaynta ugu hoogan ee caafimaadka gabowga weli waxay ku wajahan tahay asaasiga, cunto isku dheelitiran, jimicsi joogto ah, hurdo fiican, sigaar la'aan iyo maaraynta walbahaarka, dhammaan kuwaas oo si dabiici ah u taageera telomeres. Hase yeeshee, haddii uu kugu yar yahay Vitamin Dii ama khatar ku tahay caafimaadka lafaha, kaabayaasha Vitamin Dii weli waa doorasho caqligal ah oo cilmi baaris dheer lagu taageeray. Marka saynisyahanadu sii wadaan sahminta sirta gabowga, doorarka Vitamin Dii ee ilaalinta saacada unugyada ayaa laga yaabaa inuu noqdo kaliya hal gobol oo ka mid ah jigso weyn.